halkani waa channelka Aftahan Video Production saaxiibada qadarinta iyo qiimaha inaga mudan dunida meel walbood inaga maqlaysaan waqti wacan ayaanu idin leenahay goordhow waxaa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee habeen wanaagsan xiise gaar ah ayuuna caawa leeyahay anigoo Cabdilaahi Balwaan ayaa ka soo jeedinaya xarunta warqabadka shirkadda warbaahinta Aftahan Video Production ay ku leedahay magaalada Johannesburg ee dalka South Africa Soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah haduusha habeen wanaagsan ahlu marqaab bismillaahi rahmaani rahiim nabad weeye nabad dunida meel walbood inaga maqlaysaan annagoo wacan iyo idinkoo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah haduusha habeen wanaagsan ahlu marqaab markale kula wanaagsan dhageystayaasha qadarinta iyo qiimaha inaga mudan hadduu alla idmo caawa barnaamijka qodobada aad ku maqli doontaan kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo weeraray ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo wax lagu qoslo ku tilmaamay go'aanka ra'iisul wasaaraha uu ku yiri waan kansalayaa heshiiskii Berbera xilli uu aaminsan yahay Axmed Macalin Fiqi xukuumadda federaalka Soomaaliya inaysan ka talin xitaa balcad iyo afgooye imaam Maxamed Yuusuf Cali imaamka beesha Mudulood iyo waxgarad kale ayaa ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya in la barakicin dadka degan ka soo horjeedka saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho qodobada oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenan habeen wanaagsan magacaygu waa Cabdilaahi Balwaan barnaamijkana wuxuu gaar u yahay channelka Aftahan Video Production oo ay suurtagal tahay inaad iga dhageysanayso channel kale oo aan tixgelin copyright-ka isla markaana intuu galo YouTube-ka ku qoro magaca Aftahan Video Production kadibna ka soo degsada barnaamijyada tayaysan ee channelkaasi Aftahan Video Production ku jira oo kamid yahay barnaamijka aad xilligan maqlaysaan ee habeen wanaagsan fadlan intaad barnaamijka dhageysanayso hoos u eeg channelku ma yahay Aftahan Video Production وانا مركلي iyo barnaamijkii habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii habsaanteen dantood haleelina marqaabku howlan Allah haduusha habeen wanaagsan ahlu marqaab imaam Maxamed Yuusuf imaamka beesha Mudulood iyo waxgarad kale ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in la barakicin shacabka degan ka soo horjeedka saldhigga military ee dowladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho الرحمن الرحيم ummadda dhibaataysan oo halkaan isugu timaday waxaan ugu salaamaa marka hore assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi waa u jeednaa inaad dhibaataysan tihiin anakana dhibaatadiina na keentay bacdima odoogi Soomaaliyeed anahay oonan beelgooni ana ka socon waxaan ugu nimaday lama walxad dawladda midaan leenahay idinkana midaan idin leenahay mid idinkaan idin leenahay waxaan idin leeyahay buuqa inta dhaaftiin si tartiiba ayaa dawladda wax looga jarihaa waxaad yeelaysaa wixiina waa helaysiin leedana barakacimay hadii alla yiraahdo beeshiina inaad deganaatiin ana jecelahay hadii alla yiraahdo mudaaharaadka aad maalmaha wadeen hal la joojiyo dawladda buuq ma roona waa koow midda lama dawladda waxaan leeyahay halka kan dadkan shacabka degan oo masaakiinta militarigu wuxuu leeyahay dhul badan oo leeyahay marka ma ahan yaani dad masaakiin oo dhulka abka ab deganaayeen oo ilmahooda ilma dhaleen inta loo yimaado waa leedinka la yiraahdo xawaay anaku ogolnahay xeeradan la yiraahdo nimanka la yiraahdo Turkiga walaalahayna waay xawaay ummadda Soomaaliyeed inta yaani hadii alla yiraahdo ay jeceshay kamid yihiin laakiin haday masaakiinta ka ahayaan dadka damiirkiisu waa isbedela marka Turkiguna waxaan leenahay damiirka dadka waa jecel yihiin isbedelin hal laga dhaafo xooga waxa waaye talaha lagu keeno duqa magaalada inuu amar meesha yimid waa maqalnay laakiin ha ahaatee asaga ugu waroona inta timid dadka dhulaa loo bedelahay oo bedelidiyan ba anfacayn maxaa jiro abkaab ninkii meesha bartay in hadeer laga raro macquul maaha marka dawladda waa la xiriireynaa waa u sheegaynaa ninka ugu sareeyo ninka ugu hooseeyo meeshan dhibaatada ka timaado cid xoog ku dayda iskale annakuna idinku istajiya dhibaataha keenina ummad kale waxa ka haleynina hadii alla yiraahdo biriga hadii alla yiraahdo lama horaan noqoto waswarsayna marka waxaan idinku imaday inaan idin dejiyo inaan idin sheego mudaaharadka adaaftiin inaad nabadgelyo ku joogtiin dawladdan hadii alla yiraahdo sobrologiya aad tusteen iyaguna yeesheen bacdama odoogi Soomaaliyeed wixii maanta ka dambeey ana wax ka jarihayo sobrologiina iyo wixii ana haasta hadii alla yiraahdo mana leedin xoogaayo wixii sharcigu qabaan ku kala baxayna Turkina dhul waa la siiyay dhulkaasuna deganaa hadii kale meel kale ilaahay wax uga keena markay waxaad yeelaysiin way idin dardaarmayaan mudaaharaadka hal joojiyo
oo yaan xawahay dhib kale la keenin iyo gacanka hadalka marka anigu saasan ku talaa bacdama laysoo yeeray layna waxa odoogu Soomaaliyeedna ahay dawladana wax ka jiraan kamid ah wixii maanta ka dambeeyo dawladuna waa maqlaysaa dadkan howdhigan ugu laata 3 bilyan jiriyayna yireen duqa magaalada waxayna xaq u leeyihiin 3 jiriyayna yireen waxayna xaq u leeyihiin inay arkaan marka hadii inta la dhib yareysanayo dhibkeedu ma yaro yaan la dhigaha la istirin dadkan hal la qaabilo halana la waramo wixii jirana hal loo sheego ساسان كنت لها عندي ورئيسي وذهب ترى أنا هايتي ماذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أو شيء شيخو إذا ماذا ما بحيان نل وحاب بحيا دولة هوسة إذا ماذا وأقنهي شركلو في الشارع أو سكايو أو هذا أفكار كويالو شركلو في الشارع ضد كده جناي ولا جك عوايي إلا إيه جنتالي إلا إيه هو هيدايني له والكاسون ولا دقيقة إذا ماذا إسكاله ما أنت إذا كرر مالها مركزتك مساكين تاو ماشي جوجو إن لسوكر دقو ونقول كودي لقى بركعيو حاجة وانا نبتار انتاسو أنقو هدينا وضياشي بيش هدانا هاي وحانو شيقينا دولة أرنتو إنا يا سهلاني سهل هدي اللهم ملايا أرنتو ما سهلان مركا أرنتان هلقا فيرسدو ومدان نقول كي دقنتانا يان لبركعين نبقى هدا جرمت كوين يان لكينين waxaan leenahay hona dana mar labaad leenahay dawladdu waa u jeedaa khaladaadka dalka ka jiro hasaxda khaladka meesha ka jiro waxaan ognahay dhulkan wadar kale loo yimiday gudoomiyaashii jooga jiray gobolka inay u yimideen hawaay turkigu inuu yiro dhulkaynu nabadgelyadiisa dhibaya aniga nabadgelyadiisa dawladda dhibaya aniga turki intuu imaanaan dalka deganay ummadani waxay deganayeen intaasoo hawaay tumanado sanadina 30 40 sano 50 sano waa dhanta luka inta la deganay intaasna turki uu ka nooma jooga turki waa walaalahay waana jecelnahay dalka inuu wax ka qabtana waa rabnaa ciidamadu hasiyaano dhul ayaga dhul badan qabo ayaga dhulkoodii la degan yahay inta ka kaciyaan ciidamada hageeyaan turki laakiin dadka masaakiinta oo meelay u qaxayaan meelay degan aan garanayn in laga barakaciyo anagu waa diidanahay arrintaas waa diidanahay habeenaan diidanahay maalinaan diidanahay mana aqbali doono marka arrintaas ha laga fiirsadaan leenahay dawladda dhexe iyo dawladda hawahay asarabaha ka fiirsato wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana imaamkan ku soo dhaweeyahay الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحال يرى إبراهيم محمد علي أولو يقان إبراهيم قيلو وحان دقن هيا دالله كويد ما هو هدان هاي حافظ كمبوضة ورشد ننع إيو هدالله كويد ما هو ترقق حرديسة انت أودا حيسا أناقو الدوكومنتي لا أولو كان دقن هاي أوسان أو بسيب هاين أوسان دنقود هاين أو شرع حق عن أولان هاي annagoo warmooga oon maqnayn oon meel jirin ee aan joogno guryahaanya ayaan waxaan ka war helnay taliyaha xoogga ciidanka Soomaaliyeed oo loo yaqaan Gorod iyo gobernatooraha gobolka oo loo yaqaan injineer Yariisow ayaa waxay dhahaan hadii alla kood ma hoo dhulka waa danguudo waxa lagu wareejiyay military meelow hadii alla kood ma hoo oosan dhul ku lahayn uma jirto oo guntay gabirteera u taqaana dhaliya waayeen xerooyinkeeduna waxa degan dad shacab ah oo hadii alla kood ma laga warqabo waxaan rabnaa hadii alla kood ma hoo ananku ciidamada mahan xere ciidan kuma aalina ayagoo dhab iyo kooxag la habaaba oo dhab lahayn oo doon lahayn 2008 aan ka ku soo dhaweynay hadii alla kood ma ciidamada warshadana jooga dhaqaalahan iyo soo dhaweyntaan waxaan ka macaashanay in la yiraahdo waa la idin barakiciha ma maqlaysa tan lamaada dal kooyad ma hoo waxaan deganahay dhulkan anigoo 70 jira ee ku dhashay ee ku dhalay ee ilmahayga ku ilma dhaleen ayaan intaas dal kooyad ma hoo jooga dhulkan sharcigaasna waa u leeyahay oo been ma ahin oo baga maxuu ahay dan guud ma ahin waxaan leeyahay marka dal kooyad ma hoo xooga taliyaha xooga Soomaaliyeed iyo duqa magaalada warka ka soo yeeray oo ku qancin oo carada iyo xumaanta ya xanaaqana galiyay inay ka waantoobaan haday ka waantoobi waayaan dhimasho nooma dhaanto inaan ku dhimanana xaqaan u leenahay nima sahadlay oo yiri aan dhinda aan sadiiq baxshee dhabtaan ku seexda dhiibi ma aan yiri waxaan idin ka rabaa marka in loo sheego warkaas oo la gaarsiiyo
oo sidaan haddii alla ku idmaaho aan cabtan kaanyo oo sidaas yahay wabillahi tawfiiq waxa waaye shacabka meeshaan degan oo inta meesha taagan iyo intii maaragtay maanta qaylada ku soo baxday oo hadli doonto anigu waxaan ka mid ah shakhsiyan maxamed kulmiye axmed sheekh maxamed kulmiye loo yaqaano dadka deegaankaana oo meeshaan dhulka oo maaragtay munishibaal ah oo sharciyeysan oon degannahay oon dukumiintiga u haysano yaanu hadlaa kana midaan ahay marka 17 February hadalkii maaragtay duqa magaalada iyo taliyaha ciidamadu ay meediyaha ka sheegeen ninka Turkiga oo la socday annaka iyo koonnaba soo wargelin oo wax warana siinin ay waxay yiraahdeen militariga dhul sii doona laakiin meeshaan maanta laga bilaabo ciidanka iskale annaku taas dacwaan ka joognaa dawladda iminka dhisan hadal badan kama gaaree oo kulaylaanahay dawladda iminka dhisan dawlad shacab inay heedan ku tala galnay dawlad boob inay taa u maleeymahayn dawlad dadka barakicisa inay taa u maleeymahayn hadda waxa noo soo baxay wax kale taa noo soo baxay haddii oo madaxda oo sare oo dawladdu ay la og tahay nimankaas waxay wadaan iyo haddaynan la ogeynba annaku dacwaan ka nahay inaan lama wiigaan raadinayna duqa magaalada waana heli weynay hadda 3 wiigay maray ilaa haddeer ma aanan helin waxay danu nagu kaliftay inaan meediyaha aan adeegsano iyo intii warkoora la maqlaayo waxaana u jeednaa annaku ma ogolin meeshayna inaan ka kacno ciidanku xerooyin badan oo leeyahay nooma baahna xerooyin la'aanu ma hayso ciidanka wixii baahi ah oo baahi muuqata waxaan ogolnahay inaan wax ka ogolaano laakiin ciidanka xerooyinkiisa faaruqa annaku dad masaakiinaan nahay ma guuri karno meel oo duurana uma soconno ciidanna dhul ma bixiyo dhulka dawladda hoosaa bixiso duqa magaaladuna xataa inuu naqaymeeyo oo naqaabilo oo noo yimaado waa noo quuri waay saas daraadeera waxaan ka cabanaynaa nimankaas nolosha meeshaan dadka meeshaan ku noolna waxay leeyihiin waad maqasheen waana maqli doontiin laakiin waxa buuqa dhaliyay waa nimankaas madaxda ahu warka ay bixiyeen meediyahay ka bixiyeen annakuna inaan meediya ugu jawaabno qasabay nagu naqatay waxaan idin sheegaynaa oo dadka shacabka Soomaaliyeed iyo deegaanka Banaadir dadka ku nool annakoo asalba inaan dulmana u haysanay haddana dulmi kale in loo kugu daro ma ogoli hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah ruusha habeen wanaagsan ahlu marqaan xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaana aad u diidan siyaasadda ra'iisul wasaare Khayre iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka hadlay hadalkii shalay ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo kaga hadlay arrinta degada Berbera oo ay heshiis saddex geesood ay ku saxiixdeen Somaliland Ethiopia iyo waliba Imaaraadka Carabta ra'iisul wasaaruhu shalay waxa uu yiri inaysan dawladdiisa u dulqaadan doonin isla markaana ay talaab ka qaadi doonto dadkii saxiixay heshiiskaasi hase yeeshee arrintan axmed macalin fiqi wuxuu ku tilmaamay arrin aan maskaxda galin isla markaana uu ugu yeeray tiisadaryeela tukaleeta ku dara isagoo aaminsan xildhibaan axmed macalin fiqi in xukuumadda xasan cali khayre aysan awood u lahayn xitaa degmada afgooye iyo balcadba inay ka taliso iskabada dhinaca berbera inay u tilaabo qaado axmed macalin fiqi oo qoraal kooban ku soo qoray social media gaar ahaan Facebook waxa uu aad ugu weeraray in ra'iisul wasaaraha intuusan hadlin uunan ka fiirsan hadallada uu bulshada Soomaaliyeed la hor imaanayo isagoo sheegay in baarlamaan ahaan xataa aysan awood u lahayn inay ka faalloodaan arrinta Somaliland iskabada isaga xukuumaddiisu inay ka hadasho amuura noocan oo kala ah waa markii ugu horeysay xildhibaan dawladda ka tirsan oo aad uga soo horjeesto go'aan xukuumadda xasan cali khayre ay qaadatay waxaanu eegi doonaa wixii ku soo kordha hadalka axmed macalin fiqi ka soo yeeray iyo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan wali ka jawaabin axmed macalin fiqi qoraalka uu bulshada kula wadaagay page-ka uu Facebook ku leeyahay xildhibaankaasi Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah ruusha habeen wanaagsan ahlu marqaan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii habeen wanaagsan dhageysto waad ku mahadsan tahay dhageysiga la socodka barnaamijka intaynu barnaamijka lamid ah ku kulmi doonana waa bahdii barnaamijka isku duuban oo idinku dhaafaya sidaas iyo habeen wanaagsan Soomaali weynay habeen wanaagsan intii hadsaanteen dantood haleelina marqaa ku howlan allah ruusha